anoo ah ayaan xasan ducaale waxaa salaamayaa madaxweyne Deni iyo madaxdii iyo dadkii oo dhan madaxtooyada jooga iyo ganacsatadii dhammaan waan salaamayaa waxaa si gaar ah ugu mahadcelinayaa madaxweyne Deni waxaa ka codsanayaa inuu marka hore dhakhtar caafimaad geeyo dhakhtarka ugu caalamsan آمين دعيرتا dhulkeediyo dudaday ku dhalatiyo dacda hooyo jiifto wili dalan dalbaraniyo dalab iyo ilmaan ahay gabar araga daymada rabbi uu ka daahiyo indhoolka damaan ahay ruux damac sareeyo xamid durugsan yeesho duruustii aqoontii doonaya baan ahay dalkaygiina kama helin daryeelkan u baahnaan maantana dahuubiyo dacwad iyo su'aal iyo fariin baan u dirayaa dowlahaan bulshada iyo dowladayda wacan iyo madaxweyne Deniyow doodaydu waxay tahay ama deeq waxbarashiyo orda dibadda ii dira ama degmadan ku noolahay degalkayga joogay dugsi kaale ii fura darsi aan ka baran karo آمين qofku waxa ugu weyn oo hadii uu baahi gaar qabo cid garab taagan inuu waayo ugu daran ya awoodda kala toode waxa Ilaahay waa qadaray oo wixii Ilaahay qadarnina horta kama horsaay karo laakiin sida dadka kale too iyagu danahood u tashanayaan qofkan kale too markii la baahi gaar qabo wuxuu u baahan yahay cid maarta ag taagan bulshadaana mar walba iyada isku tashata dowladnimadana waa dadka oo dantooda oo ka qabsada dad gaar oo yaala ma jirto marka aadan u mahadcelinaya runtii dareenka degdega ah oo ganacsatada iyo dhammaan dadku ay maalmihii dhawad ay qaateen ka xukuumad ahaan insha Allah awalba dowladda iyaga aasaas u ahaa inaan taa ka sii wada shaqeyno sidii loo hirgelin lahaa wixii baahida ay tabayaan oo xaqqa tacliinta inay helaan iyo wixii daryeel ah ka gadaalna in maaragtay arrimahooda kale oo ku saabsan tacliintooda iyo mustaqbalkooda wixii laga qaban karo inaan ka qabanno aadaan runtii ugu rajo weynahay arrintaasna si fiican baan wax uga qaban doonaa haddii Ilaahayna ka dhigo wixii karaankeenna oo dhan waa istaagi doonaa haddii ahaanad caafimaadkooda iyo haddii ahaan tacliintooda dabcan maalintii dhawaato dareenka dadka oo dhan aad u hadlaysay laakiin hadda wixii tabar ah oo hadba la dhaqaajin doona haddii Ilaahay ka dhigo dabcan haddaba waxa isku dayaa jira kooban Puntland oo dadka indhaha la garo waxba ka jira kuwa dhagaha la iskuulaad baa jira laakiin sidii la rabay ma wada aha oo waan dadka lagu soo jeedin waxaan inta in ka badan waa la qaban karay marka dareenkiina aadan uga mahadnaqeynaa haddii Ilaahay idmo annagana waajibkeena intii karaankeena un baan gudan doonaa anagoo iswada kaashanayna haddii Ilaahay idmo ayaan iyo cunuga yaroo kaleeto oo dabcan haddii noqoto wax dad waxaa jira dhalasho oo waxba laga qaban karin iyaga cadeyn doona haddii ay tahay wax laga gaari karaan intii karaan ah inay hesho marka insha Allah khayr baan rajeynaya hadda quraanka ma dhigataa ya quraanka isagu inta soo farto laakiin far ma jirtay waxaan ka wadaa inay xafido insha Allah de kulli materialkii iskuulkii inaan hawlgalno sida ugu dhaqsaha badan haddii Ilaahay ka dhigo marka taasna insha Allah wixii karaankeenna